halkani waa radio Golis News dhageystayaal ku soo dhawaada qoraysi gaar ah oo aan maanta la yeelanay xoqayihii shirkid ee ay ka tashiga ummadda reer Somaliland ee ka dhacay bishii May 1991 magaalada Burco ee gobolka Togdheer mudane Aadan Axmed Diiriye Aadan Baradho oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee caanka ah ee reer Somaliland qoraysigana waxa uu dhacay sidan ka waran aadan shirkaas sidee ayuu uga soo qayb galeen beelaha Somaliland alxamdulillah salaatu wa salaam ala rasuulillah shirka waxa marka hore shir ay soo abaabishay ururkii SNM baa soo abaabulay oo markaa dalka ka talinayay oo waqtigii maxaan faraay dalka markaa xoreeyay marka muhiimadda koowaad waxay ahayd in beelihii Somaliland walaalaha ay kala maqnaa la isugu keeno oo la nabadeeyo marka kadibna ayahooda ay ka tashadaan beelaho shirku saas ku qabsoomay ururka ayaa qabtay waxaana gudoominayay maxaan faraay gudoomiye ku-xigeenka ururka Xasan Ciise Jaamac shirka markaa abaabulkiisa waxa lahaa ururka SNM shirku muddo intee leeg buu ka socday magaalada Burco muddo kulley bil aan ka yareen buu ka socday shirku magaalada Burco oo maxaan ku raayay intii ayaha laga tashanayay iyo intii dambe ay ururka golihiisa saddexaan saxanayeenba muddo bil ka yareen bay iyaga qodobadii asla qaadateen maxaa kamid ahaa xilliga qodobadii asla qaadateen maxaa kamid ahaa xilliga qodobadii aan isla qaadanay waxay ahaayeen waxa weeye markii heshiisiintii beelaha iyo waxaas dhamaadeen waxa la isu fasaxay inay beelahu iyagu isku gaar noqdaan oo ay aayahooda ka soo tashadaan waxay ku soo heshiiyaan marka ay ururka u soo gudbiyaan si ururkuna u ansixiyo oo wixii sharci u noqdaan marka waxay sii yihiin odayaashii beelaha oo gobolada oo dhan ka kooban ama beelaha Somaliland oo dhan ka kooban waxgaradkoodii iyo madax dhaqameedkoodii bay sii yimi waxa la go'aansaday markaa lixda qodob halkan ay ku qoran yihiin waxa koow ka ahaa in dalkii la oran jiray waqooyi Somaliland la oran jiray Somaliland Protectorate oo markii dambe gobolada waqooyi loogu yeeri jiray inay gaar isu taagaan xornimadoodii 60kii ka luntay la soo noqdaan oo ay gaar isu taagaan ayaa qodobka koowaad ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa in lagu dhaqmo shariicada islaamka oo iyadana dastuur laga dhigto qodobka saddexaad wuxuu ahaa in la sugo nabadgelyada oo maadaama markaa dalka la xoreeyay hub badanina dhulka ku daadsanaa goorba rasaas iska dhacaysay nabadgelyada ayaa aad muhiim u ahayd marka taasina qodob ay ahayd in nabadgelyada la sugo waxa kale oo iyana qodob ahay in golayaasha ururka iyo xukuumadda la dhisi doonaba si cadaaladaha beelaha waqooyi loogu qaybiyo beelaha walaalaha ee waqooyi wada degan in si cadaalad loogu qaybiyo waxa iyana qodob ahayd in si dhaqso ah loo dhiso dawlad xukuumadda si dhaqso ah loo dhiso way markaa waxa la ururka SNM baa markaa meesha xukumayay Allahumma salli ala Muhammad waxa iyana qodob ahayd nabadgelyada sanaag in si gaar ah wax looga qabto oo markaa guddi loo diro waxaana sababaysa taas intii dalka la soo galay iyada dagaal ka dhaceen oo beelihii wada deganaa markii hore dadka kala baqnaa ee nidaamkii hore jiray uu isku diray ayaa waxoogay ka dhaceen intii dalka la soo galay sidaawgeed iyadana qodob gaar ah oo siinay oo in si gaar ah loo soo nabadgelyadeeda ayaan qodob gaar ka dhignay lixda qodob bay ahayd markaa wixii lagu heshiiyay lixda qodob maxaa ka suurtagalay ama maxaa ka suurtagali waayay lixda qodob horta waxa weeye goolistaag u istaagay Somaliland maanta wata dawladda calanka leh gaarka lacagta gaarka leh dastuurka leh wax walba leh golayaasheeda leh xukuumadda maxaan ku dhahay istiraaf dawliga iyo la helin baa hadda waxa weeye waa uma jirto oo xukuumadda ama dawlad jirto qaran jiroode adduunka la macaamilayo weeye qodobkaas waa hirgalo qodobka koowaad waxa qodobka shariicada islaamka ma hirgelin had ilaa maanta qodobkaas ma hirgelin qodobkii nabadgelyada alxamdulillah rabbil caalamiin waa hirgalo weyna nabadgelyo ku naaloonayna gees ilaa gees dhismo dawladeed waa hirgalooda wata dawladda shaqaynaysa maxaa ku dhahay golayaasheedii nidaamkeedii waxa loo daa shaqaynayaan iyo maxkamadaheedii iyo booliiskeedii ciidamadeedii wada shaqaynayaan dawladuna waa hirgashay alxamdulillah rabbil caalamiin Allahumma salli ala Muhammad qaybtigii xukuumadda isna dawa jira waa wada dhex muuqda beelo waa wada muuqdaan dabcan
إن نديها تتوسق من نوع اللي بهين يودي الصوب ويلانية أحساب ووضع ورشوين لكن طبعا حكومتي وسيلة دي حفيسة ده والله قوضة النقطة خاصة هو هرقة شوال أو نكرة تينو بتقولي السنة قلت الوهرقة شوال وحكي لي أن يبدي وحوي قوضة شريعة الإسلام فين لقوا رغبه كم هذا وإنت الصوت إن أي سلبي قوضة هاي حدنا وشيء يقضى بالصور كم به وحلا واحد الصور تكهر إيمانه يا أي واحد كمثال حدنا بمحفظه إنه حير بالغ غيره ما الشريعة لك جوان رغمه فكحل ورك لو قضى قاسي سيدي ومهول جرين وها شركة حبنيه الصحيحي محل وش يكتر حبناها صحيحي وبدناين قبل وربا كم بيهاين قبل وربا حبناها صحيحي طبعا ورقة الدواء ورقة كوبان oo mowda qaadi karto odayaashii meesha isugu yimid markaas si kooban waxaan u soo qaadnay in gobol walba laba qof saddex qof intii markaa maxaan wadhaagaysaa gaar ahaan salaadiintii aan iyana ku qoray oo u saxeexay waxa weeye sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar allahu naxariistay guddoomiyihii guurta uu saxeexay suldaan maxamed faarax wuxuu ahaa suldaan gobolka waqooyi galbeed ka tirsanaa markaas gobolkan hargeysa kamarod sheekh laylaa marka waqooyi galbeed buu dawli markaa ahaaye oo weli waxa sii jiray jamarkeen magacyadii hore sii jiray waqtigaas soo gartay suldaan cabdi sheekh maxamed isaguna wuxuu ahaa gobolka waqooyi galbeed suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir waa kan nool beemka ee maartay sudaanka guud suldaan yuusuf suldaan xirsi qani gobolka togdheer allahu naxariisto waa dhintay allahu naxariisto waa intaan soo xaadiriyo dhamka waxa ka nool suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir allahumma salli ala suldaan taxaddi suldaan diiriye isna waa dhintay gobolka waqooyi galbeed buha suldaan ismaaciil muuse gobolka waqooyi galbeed bu isna allahu naxariisto waa dhintay suldaan rashiid suldaan cali gobolka sanaag suldaan ismaaciil suldaan maxamuud isna waxa weeye waa degmada laas qoray waa dhintay isna axmed sheekh saalax waa nool yaalla naxariisto waa isna waxa weeye degmada laas qoray sheekh daahir xaaji xasan oo gobolka sool axmed xirsi cawl oo jiif caqal ahaa waa gobolka sool suldaan maxamed jaamac gobolka awdal allahu naxariisto waa dhintay sheekh muuse jaamac goodaad allahu naxariisto waa sheekhii guurtidana ahaa suldaankan ahaa waa dhintay oo gobolka sool isna waxaa gobolka awdal xasan cumar samata degmada saylac maxamed warsama shiil degmada saylac garaad cabdiqani garaad jaamac allahu naxariisto waa dhintay isna gobolka sool oo garaadkii dacaanka ahaa la garanayo suldaan cali muuse gobolka togdheer isna waa dhintay allahu naxariisto aadan axmed diiriye oo aniga kula hadlayo waxaan ahay anigu xogayihii shirka marka saxaaxa intaas baa saxaaxday aada waxaad ka warataa saxaaxa bisha waxaa ku qoran 5tii bishii May 1991 inaad saxiixdeen maxaa dib u dhigay inaad ku dhawaaqdaan 18kii May oo u dhaxaysay muddo gaaraysa 13 cisho waxa dib u dhigay waxa weeye go'aan kale wuxuu ahaa kii beelaha ay soo gaadheen buu ahaa oo iyagu markay ayadu ka soo sheegay go'aankii ay soo gaadheen buu ahaa marka waxay u gudbiyeen ururka SLM oo markaa bay iyagu kuwii dalka xukuumiyay sharciga ahaa ururka markaa waa inay ansixiyaan weeyi ansixintii ururka markaa waxa weeye golihii dhexe ka fadhiistay golaha dhexe markaa shirkiisu soconayay intaas intii ay golaha dhexe ansixinayeen weeye muddadan u dhaxaysa 5 May ilaa 18 May labada go'aan 18 May bay ku dhawaaqeen waxa weeye waa markii ay ansixiyeen golihii dhexe ururka SNM ayaa ah 18 May laakiin markii odayaasha beeluhu ay soo gaarin waa 5 May inta u dhaxaysa waa intii shirka golaha dhexe socday ee laga doodayay ee ay saxinayeen weey gabagabadii xogay waxaan lagu maqaalaa in xilliga ku dhawaaqista Soomaaliya idinku aad go'aankan u dhigteen guddigii ama hogaankii asnaf in gudoomiyihii xilliga ahaana madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali uu ku taliyay in aan la qaadan go'aansitaag laakiin la qaato Soomaaliya magaceedii oo aynu inagu dib u xukunno Soomaaliya haddii aynu taa qaado weyn aynu ku kalifayso inay nagu qaato 20 sano iyo wax ka badan inaynu helno aqoonsi dawladnimo arrinta maxaad iyada war naga siin kartaa arrintaas horta waxa weeye
sida wax walba ka bedelan mutahan way u tahay laakiin wax walba ka bedelan meesha hadalkayga horta ma ahayn shirka burco ma ahayn waxa shirka horeeyo hordhaco Hargeysa lagu soo qabtay buu ahaa oo loogu sii gubal xaaray ka burco taas uu ka soo jeediyay in aan la goosanin maxaan ku raayay la qaatay nidaam federaal ah sida gaar ahaan wuxuu qaatay waliba oo example soo qaatay sida Imaaraadka oo kale Imaaraadka Carabta oo kale marka muu oran soo 20 sano wuxuu ku soo yeeyo waxa laga yaabaa in ixtiraafku lagu raago oo 2 sano iyo xalmada lagu qaato daawgeed anigu waxaan soo jeedinayaa kala ahaan inaynu nidaam federaal qaadano oo ka Imaaraadka oo kale ah waa maalintii furiyay shirka ay taasi shirkii markii uu socday qodobka waa la diiday lama qaadan oo istaaga la qaatay isaguna markii dambe uu shirka xidhayay uu ka hadlay wuxuu yidhi fikirkayga jeediyay xaq waan leeyahay waan kana idinka leh ta ajaadeen bana raacaya arrintaas taasay gabagabadii waxa midna aad nooga warantaa markii aad xilliga aad qoraysay warqadan ama heshiiskan may jirin dalka wax ay tiir sida kombiyuutaradan iyo qalabkan casriga hadda yaala dhibaatooyinka laga baad ka qabsatay qorideedii iyo helidii inaad ka tashigan ummadda u reebtaan oo maanta waa aynu ka joogno muddo 22 sanadooda aanu dhalinyarada xilligan kacday aanu haysano qoraalkii iyo dhaxalkaad xilligan nooga tagteen dhibirta laga baad ka qaadatay warunta dalka markaa dal burburay buu ahaa oo markaa la soo galay oo wax alla maxaan ku raayay wax dhaxyeel aan jirin haddaan masaal soo qaato markaan shirkan ay ka talinta u fadhiisanaynay fadhinay gaarinta ka haysanaa magaalada caawa ka soo urursan waxaan ku fadhiisanaynaa caawa ka soo urursan magaalada inta gaar ka haysanaa ragdan gaariga saareewan magaalada ka soo ururiya caawa ku fadhiisanaynaa marka xaaladda halkaas ay taagnay dabcan xagga ururka waa laga yaabaa laga helo laakiin anagu dawadayaasha hadaan nahay teeban wax ku qoray computer iskabada iyo meelan haysan warqadan aniga marka hore gacantayda ku qoray oo ku daraafiray maadaama aan xogayay shirka markaas aniga doodna inta qaaday nin arkiira oo stationka burco station police burco hortiisa fadhiya ayaan u geeyay oo ka soo teebireeyay oo lacagtii aan uga jeedkii ka siiyay shaqadiisii markaas sidaas baan ayaan maxaan ku raayay ku soo qornay wixii hawl ka dhacay sida xaaladdu ahayd halkaas ka soo wareeg kaasina wuxuu ahaa ganacsade Aadan Axmed Diiriye Aadan Baradho oo ahaa xogayihii shirkii ay ka tashiga Somaliland oo aan ku wareysanay maanta xafiiskiisa waa wariye Miir Cali Xuseen shabakada caalamiga Golis News Hargeysa.